kulanti waxaana wanaagsan daawashana qiimaha badan waa mar kale iyo barnaamijkeenii wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca diblomaasiyadda ee barnaamijkeenii caanka ahaa ee waranwarayn barnaamijkeena waranwarayn daawashana qiimaha badan waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowra oo markaasi ay ka midka tahay dowladda Iran oo ku dhawaaqday meesha uu ku dameeyey barnaamijkii ee horumarintiisa waday ee uraniumka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo warkaasi soo tabiyey waxaad kaloo maqli doontaan daawashana qiimaha leh qodobo kale oo xiiso badan oo ay ka midka tahay dowladda boqortooyada Saudi Arabia oo la ogaaday in ay doonayso in ay gacanta ku dhigto heshiiskii ugu ballaadhnaa ee military ay ku iibsanayso diyaaradaha cawaandiga F-35ka iyo qorshaha la ogaaday ee doodisu ay socoto Israa'iil Mohammed bin Salman amiirka dalka Saudi Arabia ee tagaya markaasi Mareykanka imaanaya toddobaadkan qodobada Trump uu aaminsan yahay waxyaalo waaweyn oo kala dardaran oo midba kale ka darantay eedihaya iyo warbixino ay ka mid ka tahay shuruudaha Israa'iil ay hor dhigtay shuruudaha Turkiga ku saabsan iyo waliba in ay Israa'iil ay doonayso in Mareykanka ay u meeriso oo u yeeriso qodob waxa uu Sacuudiga sii karo wuxuusan sii karin waxa ay kala hadli karaan waxaysan kala hadli karin shuruudaha ku xiran oo la ogaaday iyo wargeyska ugu weyn wararka noocaas kale soo faaga ee sheega waxaad kaloo maqli doontaan daawashana qiimaha badan kooxda nidaamka samniyadda ciidankooda weerar culus ku qaaday ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee aagga Puntland-ka jooga ee u dhaxeeya Lubnaan iyo dhulka haysta ee Falastiin ee Israa'iil ay qowmaarto iyo waliba gidaarkii halkaas ay mari lahayd laajigeed oo weerar ay ku qaaday ciidanka qaramada midoobay Israa'iil oo u eg inaysan ninnaba isan cawradeeda ka qarsanaynin waxaa kaloo idin hayaa daawashana qiimaha leh haweenaydii dalka Bangladesh laga bixiyay oo dil toogasho lagu xukumay rasaaraha ka ahayd laajiga in ay gabi ama musuqmaasuqi ugu badnaa ay geysatay xilli dunidu ay doonayso in khayraadka yar ee wadan walba uu haysto si dadka loo gaarsiiyo laga badbaadiyo tunweynta siyaasiyiinta iyo madaxda ee doonaya inay halkaasi laba liqaan oo markaasi ayagu ay carabka mariyaan qodobadaasi kuwa kale aad maqli doontaan wararka ugu dambeeya Venezuela iyo Mareykanka oo dagaalkoodan uu qarxi karo ayaa iyagana jaleeci doona hadba inta inuu wararka ku jirno hadii ay wax ka soo naasacadaadaan ee ku soo dhawaada warawarayn oo 17kii bishii 11aad aan idin tabi doono di eeba idmo idiguna ka qayb qaadataan si aad u lixaad leh faafisan gaarsiisan asxaabteena ku soo dhawaada barnaamijkeena dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in ay tilaska ciidanka qalabka sida dalka Mareykanka nuqulka go'aanka madaxweyne Donald Trump lala wadaagi doono daqiiqadaha soo socda kadib markii la sheegay in uu soo gabagaboobay shir madaxweyne Donald Trump uu galay ama uu la galay markaasi waaxda u qaabilsan la taliska ama amniga qaranka Mareykanka amniga qaranka dalka Mareykanka ee loo yaqaan the National Security Council ee madaxweyne Donald Trump uu gudoomiye ayaa situation roomka qolka loo yaqaano ee dhulka hoostiisa ku yaala ama undergroundka basementiga aqalka cad ee West Wing wuxuu kaga sheekeeyay sida ay muhiim u tahay waxaana lagu falanqeeyay sida ay arintaasi noqon karto laba mawduuc oo waaweyn ayaa la karkariyay waxaana la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu door biday marka hore in weerarku uu noqdo mid preemptive strikes waxa loo yaqaano ama weerar sanjabis oo goobo cayiman lagu burburiyo laguna beegsado halkaas uu sheegay inay noqon doonaan goobo of wareen ahaan dowladda Mareykanka ay u naafayso hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in goobo waaweyn oo markaba dowladda dalkaasi laga naafee karo aysan jirin hase yeeshee ay gabi ahaanba ay jiri karaan ayay yiraahdeen in ay tani cariso un carada dadka reer Venezuela oo la doonayay in iyaguna ka qayb qaataan kacdoonka kolkaan ay u arkaan wadankoodii oo loo soo doolaale tagay dabeedna qof walba uu qaato waranka iyo gabaska kolkaana ay noqoto in la isdilo oo dowladda Mareykanka ay isnacaysaan mid ka mid ah saraakiisha ciidanka qalabka sida ee dalka Mareykanka ee hore ayaa ka digay in dowladda madaxweyne Donald Trump ay la kulmi karto wuxuu ugu yeeray cawaaqib xumo aad iyo aad u weyn haddii ay dowladdu ay gabi ahaan aysan ka fakirin ka baaraan degin weerar kasta oo noocaas wuxuu noqon karo korneylkan oo la yiraahdo gaashaan la sare ee Cedric Layton ayaa yiri aniga waxa ay ila tahay in haddii dagaalku uu isku bedelo mid gacanta la isla tagay isla markaana ay dowladda Mareykanku ay qaado tallaabo ay doonayso inay regime change ku samayso ama inay taliska xukuumadda inay bedesho in ay arintaasi noqon doonto in la is warmeeyo muddo aad u dheer kolkaana ay hanta xarub halkaas ka dabeedna ciidamada Mareykanka aan la garadoonin waxa ay kala kulmi doonaan dadka reer Venezuela dadka Isbaanishka oo lagu yaqaano halganka iyo sidoo kale dagaal aqoontiga ayay ku tilmaameen inay sidoo kale yeelan karaan dhibaatooyin aad u xooggan iyo in xataa marmarsiyaha arrintan ku saabsan uu noqon karo mid gabi ahaanba ooda ka qaada daroogooyin fara badan maadaama hadda dowlad ahaan ay meesha ka jirto taa waxaa sii dheer
in madaxweynaha dalka maraykanka uusan haysan laba sharciyadood oo muhiim u ahaa oo kala ah aqalka koongareeska ee dalka maraykanka iyo tan caalamiga ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay labadaasuna ay ku culoobi karaan oo dowladda maraykanku ay tahay weerar markaasi badheer ah oo loo arki karo inuu yahay markaasi mid handadaad iyo gardarro ah taasoo hadhowto isku bedeli doonta kabtay maaragtay haddii ay arrintu ay sii xumaato haddaba wararka wacala dhinaca dulansiya dabashana qiimaha badan weli bartankeenu kaga jirna waana trapel waxaana ku maqli doonta barnaamijkeena warwarayn qodobada kale aan ku siqayo ayaa waxaa ka mid ah haweeneydii loo yaqaana sheekh xasiina ee waddanka bangaladesh dhowr iyo tobanka sannadood xukumaysay iyaduna isisisay dalkaasi kadib markii aabaheed ka mid ahaa dadkii tuweynta ahaa ee sheega inuu usoo halgamay kadib markii barigii waddanka bakistan laga dhigay bangaladesh haweeneydan dhowr iyo toban sannadood fadhiday ayaa markan lala doondoonaya in surka xarig lagaga xiro siday wararku ay sheegayaan wiil ay dhashay oo markaasi baqacar ahaan u jooga magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa waraysi dheer uu bixiyey wuxuu ku tilmaamay in uu ogaaday in maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto goordhow waxa ugu yeedhay in hooyadii la daldalo sajiib wasiid ayaa ka digay in hooyadii la dilo haweeneyda la buriyey bishii agoosto ee sanadkii hore ayaa waxay markaasi carar ahaan iyo magangeliya doon ahaan u joogta dalka hindiya wuxuu u sheegay hooyadii in ay gebi ahaanba aysan abid kusoo noqon waddanka tan iyo inta ayuu yidhi xukuumaddan ay miyirka usoo noqonayo wuxuuna ku baaqay in muwaadiniinta taageerayaasha haweeneyda ay isku diyaariyaan inay tallaabooyin qaadaan isagoo ka digay in taageerayaashu ay qaadi karaan tallaabooyin xoogan oo ka mid ka tahay inay qaadacaan doorashada la qoondeeyey sanadka dambe iyo sidoo kale inay mudaharaadada ay dhigaan ay noqoto mid dalka dhibaato u keenta iyo dagaal sokeeyey isagoo sheegay haddii hooyadii dil toogash lagu xukumay inay taas noqonayso waan ogahay ayuu yidhi exactly waxa dhacaya yacni way cabiran tahay waxa dhacaya waxaana ka mid a in ay qabtaan ayuu yidhi markaasi dood furan maxkamaddana ay markaasi telefishinka ku xidhaan oo sida markaasi ay sameeyaan dowladaha daciifka ah ayuu yidhi ee dadka ay maxkamadeynayaan daliilka lagu xukumayo warbaahinta kasii daaya taasoo ay awoodooda ku muujinayaan ayuu yidhi wuxuuna sheegay inay tani ay tahay daciifnimo ay waddanka usoo jiideen islamarkaana ay doonayaan in ay iyadoo la eedeynayo hooyada oo laflagaadeynayo oo laleeyahay waxbay xaday tuugaya heed halkaas laga sii daayo iyo sidoo kale in ugu dambeyn in halkaa lagaga dhawaaqo dil toogasho ayuu ka sheegay magaalada washington ee xarunta dalka maraykanka wuxuu yidhi maxay ku sameyn karaan hooyaday hadeerta waxay ku badqabtaa dalka hindiya ayaana siisay amni buuxa ama amnigeeda sugtay haddaba haweeneydani maxaa loo haystaa haweeneydani ma tuugay ahayd waxaa loodhan karaa ha 100% sababtaa waxaa loo hayaa caddaymo inay haweeneydii ay waddankeeda xadi jirtay ayna ka shaqayn jirtay in ay dalkeeda oo dal faqiir ah ay dhaqaalo aad u badan samaysay isla markaana xataa heer ay gaadhsiisay musuq maasuqa in dadka ayada camiilka u ah ee gulwadayaasha u ah shaqooyinka la sii jiray dadka la sii jiray dadka dhalinyarada ay aqoon aan lagu xuli jirin si cadaalad aan lagu xuli jirin adugu qaab uun qabyaaladoo kala la oran karo oo marka qofkaasoo kalena waxa weeye qof gebi ahaanba laba qof oo isku mid a oo runtii ama isku aqoona ama kala aqoon sarreeya laakiinse mid uu ku xigo adigu haddaadan eegin shaqada yaa u fiican waddanka yaa u fiican keebaa wadaniga keebaa fiican keebaa daacada keebaa shaqada yaqaana keebaa khibrad leh haddaadan fiirin laakiinse aad fiiriso keebaa i xiga waa waxyaalaha laguna naar murto waana lagu naar mutaa adduunkana cuqbadeedu soo degdegta sababtoo ah fiiri markii la sameynayay baarlamaanka ugu horreeyey muslimiinta xilligii cumar soo ma ahayn maxaa lagu xushay yaa ugu aqoon badnaa qur-aanka yaa ka mid ahaa iyo diinta qofkee baa ugu yaqaanay qofkee ugu ammaano fiican kadibna maxaa la gaadhay horumarkii ugu weynaa baa islaamku gaadhay berigaasa ugu dambaysa la islaamka cadaalad fiican mafahmaysaa maxaa ta ii sheegeen oo sidaas lagu soo xilligii asxaabtii afartii maarata khulafaa raashidiintii ayaa ugu dambaysay maxaa lagu xuli jiray qofka aqoontiisa iyo ammaanadiisa mafahmaysaa aqoonta marka waxa weye aqoonta weli waddanka waddan muslina mogti waddan muslimiin 100% sidaa daraadeed qofka in lagu xusheeyo saas oo kale laakiin aad tiraahdo qofkan waa reer in adeerkay baa dhalay walaalkay baa dhalay hadduu walaalkaa dhalay uu soo baran dee xamaasho xaq u leeyahay inuu xamaasho moogta inuu tuurta dhigto xaq u leeyahay laakiin wiil lagu soo tabcay ama gabadh lagu soo tabcay oo waxeeshay waxyaalaha Soomaalida ku badan xataa waxay ku badan tahay wax kale iska day private sectors يعني shirkadaha gaarka loo leeyahay waxyaalaha in horumarka ay u gaari waayeen qofkan u eegi maayaan war shaqada adiga yaa ku qaban kara wuxuu eegayaa adeerkay wiilka adeerkay dhalay halkii wax ka cuni kara oo adeerkay wiilka adeerkay dhalay dad meherada adiga keento soo meherada ka xidhmiisay lama yaqaani shirkadii sabay horumar u sameynaysaa dadku waxay doontaan qofku ka fariidsan yahay qofku ka jiniysan yahay qofku ka aqoon badan yahay adduunka la doontaa
markaasaa weliba xataa la siiyaa waxyaalo dheeraada isagoo haysta digriiga koobaad ayaa masarka laga bixiya si aad ugu tabacdo u maalgashato. adduunku horumarkan iskama samaynin moogta walaal, adduunkan iskama samaynin horumarkan. adduunkan horumarka wuxuu ku sameeyey qofkaaga fiicane friidka ah, qofkaaga geniuska ah, smartka ah. horumari kaasaa ku horumarinaya, kaasaa dalka horumarinaya, kaasaa shirkadda horumarinaya, wasaaradda horumarinaya, mawduuca horumarinaya. laakiin kaalay adaa xaaskayga ku dhashay, adaa xaaskayga ah, adaa qaraabaa, adaa kana kaalay qabo dokumentiga waddanka. wallahi inaynan weligeen iyo allehen dad noqonaynin haddaynu xitaa shirkadaheena xataa waxaan ka hadlaya anuu cid gaaraba ka hadli maayo, waxaan ka hadlaya from maamul goboleed to shirkad ilaa iyo madaxweyne Soomaaliya baan ka hadlaya. adduunka inay ku shaqaysaa war qofkeebaa fariida, war qofkeebaa waddankan wax kusoo kordhi kara, war qofkeebaa aqoontiisu isaayta, war qofkeebaa wadani ah, war qofkeebaa waddanka u fiican, war qofkeebaa waxtara, war qofkeebaa karti badan, ability qofkeebaa leh moogti. karaanka qofka ayaa lagu adduunka lagu hadda waxay gaadheen adduunka Soomaaliya arag qofka waxay ku dhahayaan scholarship waxaanu siinanaa qof natiijadiisu wanaagsan tahay. maxay u siinayaan adduunka scholarshipka qofka natiijadiisu wanaagsan tahay? ma ka fikirto weligaa laha? ma waxay kula tahay inay adiga ku jecel yihiin? may adiga gaar kuma jecla, mustaqbalkaagay rabaa inay kula qaybsadaan. sababta waxay leeyihiin qofkan Soomaaliya number 1 ka u galay iskuulka, tusaale ahaan marka Sacuudiga ama Qatar ama Maraykanku marka uu siiyo scholarship wuxuu doonayaa qofka inuusan sii dayn. hadhowta marka qofka wax la baro inuu halkaa ka shaqeeya la rabaa, shirkad baa la rabaa Maraykan inuu soo saaro wax taro. waxaa la dhahayaa qofkii isagoo waa la recruit garaynaya, isagoo shaqadii ku jira la dhahayaa isagoo waxbarashada ku jira la dhahayaa shaqana waa lagu siinaya. qofka waa la jeclaysay, qofka wuxuu dhahayaa marka maxaad meesha Soomaaliya kaga noqon waqti. laakiin qofka isagoo maxay ahayd dowladda Soomaaliya inay iyadu ka bixisay ahayd scholarship ku leeyahay dalkaaga wax u soo baro annaga ka bixin. ila qofku waa qof damiirlo wana fariid uu garanaya soo noqo marka jaamacadda soo dhamayso, soo noqo nagu soo noqo asagoo ardaygu ku imaanaya adaa ku hormaraya. laakiin inaga maxaa la eegayaa qofkan waxaa la eegayaa ina ayaata yaale wasiiradeeni baa intay banaanka soo fadhiisteen yidhi haddaan 10 shaqo helo waxaan siinaya bahalka. madaxweyneeni baa yidhi isagoo fagaara fadhiyo dhalinyaradii Soomaaliya daawanayso antum tudruun yani inagoo aragna ayay waxay ku dhaheen idinku arka sa indhihiinu shan u yihiin waxay ku dhaheen maxay tahay wuxuu ku yidhi ilmahayga aan muwaadinka ka rabtigo ay ka dhaleen kawa muwaadiniin. adduunka muwaadiniin keliya xol iskuma siiyo. haddii la odhan lahaa qof walba waa muwaadin keliya xol iskuma siiyo. adduunka qualification shaqada yaa qaban kara, yaa u qalma, yaa mudan, yaan isku haleenahayn. aniga waxaan ogahay 100% haddaan wiilkayga shaqo siiyo oo aan shaqo ka siiyo yani ama ilaahumaan dukaan yar haysto, haddaan shaqo ka siiyo waxaan ogahay in uusan u shaqaynaynin sida wiil kale oo duruufaysan oo ka aqoon badan isaga uu igu shaqeela. saasan ku waa 100%. kan wuxuu isleeyahay hantidan adaa le baashan adaa le, hadduu doono mar uu seexanaya, mar albaabku xidhaya, mar markuu doono dadka maagaya. laakiin kan wuxuu ogyahay waxa isku kaaya keenay waa profession iyo shaqo, wuuna u baahan yahay lacagta. think deep. haweenadan marka saasa lagu haystaa, waxyaalaha lagu haysto marka hadda waa fahantay. waxaa lagu haysta waxaasay ka shaqeey jirtay. markii dadkii ku mudaharaadeen arrintii diideenna way laysay, xabad bay marisay. sidaa waxaa kaloo ka daran camiilad bay ahayd u shaqaysay India ayada iyo aabaheed waddankan dadkii maartay madaxda kasoo habuha maxay tahay shay waxay ahayn qoys dhan oo Hindiya camiil u ah oo maartay murtasaqiina weliba murtasaqiin qoomiye ahaayeen. sababtoo ah fiiri waddanka Hindiya ayay uga soo mar walba xilisa fajireen Hindiya marka Pakistan Hindiya at the same time waxay ka cabanayeen Pakistan ciidankeedan dagaal sokayna dhaxmar. fiiri haddaad tiraahdo waddanka baa kala go'aya, adduunka laba waddan oo kala go'ay oo dagaal sokaya dhaxmarin maba jiraan. samoog bal waqooyiga Kuuriya iyo koonfurta Kuuriya ilaa hadda may kala go'in. waqooyiga Kuuriya waxay u aragtaa koonfurta Kuuriya waddankoodii. hadda iyadoo saas waa ninka adduunka aad aragtay xiran saas oo arkaa koonfurtan saas kale u aragtaa. qofka waqooyiga Kuuriya ka taga ee koonfurta Kuuriya taga waa automatically waa muwaadin, waa qof Hargeysa ka taga oo xamar tagay. waxay ahayd marka Hargeysa saas kale looga arko. fiiri sababtoo ah de kala go'i weli practical xataa isagoo ayaga uu noqday waqti laba calan bay kala leeyihiin, qaramada midoobay labadu ku jiraan, laba wadan baa loo kala aqoonsaday. waxaasoo dhan haddana dadkii weli way isku sii hayaan, iyadoo colaada nuclearka ay jirto inta soo sana la isleeyay. sidaa daraadeed haweenadu waxyaalaha ka shaqaysay waxaa weeye in colaadii ay dad ilaa dad ay ka dhigtay, oo ay ka dhigtay bariga Pakistan bay ahaa jireen. waana arrimo waaweyn reer galbeedka ay sameeyay. aabaheed baana ka shaqeeyey, dadkii ka shaqeeyey kamid ahaa. hadeertana Hindiya wiilkeediina wuxuu leeyahay haddii hooyadii la dilo
ama dil lagu xukumo death penalty lagu xukumo waxaan sameynana waa kicinana dadku dagaal sugayo waddanka ka ridanayo dadka annaga naxiga ayaa dagaalami doona taasaaba dembiya iyada lafteed hooyada haddii maxkamadda dadkii la idilaysay iyo dadkii dhimanayay maxay ahaayeen ma dad soo ayaguba ubad iyo dhalinyaro ma ahayn taasna waxaan hooga tusaaleyn idinku soo qaadanaya in mar walba musuq maasuq qofka halkaasoo geeya halkaasoo kale u geeya musuq maasuq hala iska ilaaliyo war uma baahnid lacag musuq maasuqad ku hesho wallahi uma baahnid caafimaadkaaga ayaa markiiba xumaanaya dhibaatooyin baa markiiba kugu dhacaya ubadkaaga ka ubadba inkaar kugu noqonaysa war qof soomaaliya oo cuntadiisa gabadha cusbitaalka hortiisa ilaah baa idinku dheershay ku umulasa ilaah baa idinku dheeriyey cusbitaal dowladdu ay leedahay gabadh horteeda ku umulasa oo ilmi yaraantu dhulka ku dhacay laleeyahay wuuba dhinta oo halkaas ku umushay oo soomaaliyeed oo cawradeedii bannaanka taal ilaah baa idinku dhaariyey waxay ahayd soomaha dalkeenna oo dhan inuu mudaharaad gilgilo ayay ahayd oo isbeddel aynu halkaa ku samayno haddaynu damiir leena saas adduunka waxyaalahaas oo kale bini aadanku way ka gilgishaan mafahaysa way ka gilgishaan laba wiil oo yaryar oo la xiday gobolka Georgia wuxuu ahaa gobolkan la yidhahdo Louisiana dalka Maraykanka ayaa waxay keen laba wiil oo yaryar oo madow oo la xiday oo la yidhi gobol yar baad la ciyaarteen oo caddaan ayaa waxay keentay isbeddelkii Maraykanka ka dhacay ee civil right activism movement-ga loo yaqaanay oo dhan ayay keentay ummaddu way fiiri waxaad moodaa sometimes Soomaalida waxaa ka damiir fiicneed dadkii la soo adoonsaday Maraykanka joogay nin la soo adoonsado isaga iyo aabihiiba lalahaaba arrintaa ka gelgishay oo aan hub haysan oo laga tira badan yahay oo laga awood badan yahay oo lagu shaqaystay oo la leeyahay nin iska leeyahay xoolihii iska mid ayaa arrintaa intuu ka mudaharaaday ka gelgishay bal innaga halkeenu joogna haddaynaan markaa dulmiga innaga maxay ilaahay ummadda muxuu inagaga saara oo ilaahay inagaga bedelay ummadda wuxuu inagaga bedelay ummad xumaantana iska reebta wanaagana isfarta anigu waan yaabay wax dhaqana oo muslimnimo ah waxaanu leenahay Soomaali shanta salaad waynu tukanaa waynu soonnaa waana 5% diinta intaas 5% waa inta kale oo diintu waa xiriir waa macaamilo waa amaano waa akhlaaq waa dhiig iyo dhiigga qofka iska ilaaliso waa maalka qofka iska ilaaliso waa cirdiga qofka iska ilaaliso waa wadankooda xadin waa tugada iska ilaaliso waa dhibaatada guud ee wadankooda ka qayb qaadan waa yaani maarta ii sheeg waa yaani bilaadanka ilaahay amaanada lagu dhiibad ka soo dhalaasho ballantooda oofiso yaani qoyskaaga si wacan oo dhaqanto ehelkaaga iyo qaraabadaada si wanaagsan aad ula dhaqanto xumaantooda dadka aad ka reebto qoyskaaga aad ka qabato dulmiga ay sameynayaan yaani gardarrada aad ka hortagto inaad gargaarin karto yaani waa millions of other things ba ka waaweyn maarta waa qof aad wax tarto noloshiisa aad wax ka bedesho waa waxyaalaha waaweyn tiirarkaas oo dhan maxaad ka qabataa tiirarkaas oo dhan waxaanu ka qabanaa adeerkay baa madaxweyne noqday kadibna dadku xadaa dadku dhacaa adeerkay baa maamul goboleed haysta dadku xadaa dadku dhacaa shisheeyu keensadaa imaaraad buu keensadaa kanbuu keensadaa waa taageere waa walaalkay waa halgamaa waa mujaahid intaasaan naqaanaa wax kale ma naqaano qof arrintaa ka eedlana waa yari dawashana qiimaha badan laakiin qofku inuu isax bini'aadanka human being waa soo noqon kartaa waa caadi qofka khaladkiisa markaad aragto ku caddaato waa laga yaabaa qofkeena marka hore ku siraan tahay laakiin markaad waa inaad saxdaa Unifil kooxdii loo yaqaanay waddankaasi haddaba blue lane-ka joogtay dawashana qiimaha badan waxaa ku dhacay wax la yaab Unifil korta marka hore waa maxay Unifil waxa loo yaqaanaa ciidamada kumeel gaarka qaramada midoobay ee jooga aaga blue line ee xuduud beenaadka u dhaxaysa wadamada Lebanon iyo nidaamka Israa'iil haddaba United Nations Interim Force ayaa loo yaqaanaa in Lebanon Unifil baa loo soo gaabiyaa waana ciidamo nabad ilaalineed oo qaramada halkaas kala talkiiska magac u yaala ayaaba gacan ku gabada waana markii afraad ama shanaad ee sanadkan gudihiisa Israa'iil weerarto weerar rasaas oo toos ay ku soo qaadeen kadib markii Unifil isku dayday inay joojiso dhismaha qorshihiisa ay wadato Israa'iil ee doonaysa inay gidaar ku gooy haf kaga siiso qayb ka mid ah Lebanon waa wadan ciidan militariya leh waanu leenahay laakiin ciidankiisa yaa biila Maraykan iyo Faransiis sida daraadeed yaa xagga laga amraa Brazil Paris iyo waxa laga amraa iyo Washington waxa kale ciidan yaa la yiraahdaa anu kale uma aqaan hadda adigu taqaanada ku taala anu ciidan dal leeyahay oo qaran uma aqaan taas waa fikirkayga aniga waa fikirkayga yani because waxaan u arkaa ciidan qaran waxa la yiraahdaa ciidan muwaadinka iyo dhulka iyo ciidda iyo hawada iyo badda badbaadiya muwaadinka dhiiggiisa marka uu maartay la daadiyo kaga jawaaba gacan bira looga boqo
isla markaana lagu dhaato oo lagu seexdo baan ciidan kolley dee anigu ciidan wadan sovereignty leh ama sovereignty wadanku markuu sovereignty uu yahay waxaan u aqaanaa anigu that's ciidan I know maartay laakiinse anigu ciidanka kale ma ogi mana aqaano nooca ay yihiin sidaa daraaddeed dowladda Israa'iil ayay nidaamka Israa'iil ayay u sheegeen qaramada midoobay in ay tani tahay marba marka dambaysa inay dhibaabeynayaan oo ay dhibaato aad u xooggan ay sameynayaan annaga ayaa rasaas nagu rideen si aad u xooggan ayaana rasaas muddo nagu socotay ayay yiraahdeen statement ka soo saaray golaha wasaaradda gaashaandhigga nidaamka Israa'iil ayaa tiri subaxnimadii saak ciidamada Israel forces waxa ay ku rideen ciidamada nabad ilaalinta ee aagga markaafa ku dhow ee aagga ku dhow ay yiraahdeen qaybta guutada markaafa tanks ee aaggaas ku jira kuwaasoo loogu talagalay in ay aaggaasi ay eegaan ayay yiraahdeen ciidanka nabad ilaalinta oo yiraahdeen ciidamada Israa'iil ayaana noo adeegsaday markaafa tangiga la yiraahdo ayaana nala dhicin taasoo macnaheedu ay tahay inay weerar tahay arrintan ayaa ku tilmaamay mar kale in ay muujinayso sida iyo weliba dhibaatooyinka aadka u xooggan ee loo geystay ciidamo qaramada ka tirsanaa oo roonda aaggaasi ka waday ciidamadan ayaa marba ka dambaysa waxay la kulmayaan handadaad rabeela oo Israa'iil ay ku doonayso inay dhulkan ku turkiso kuwaasoo ay sii badanayso haddaba aan eego dowladda Saudi Arabia oo cajibaadkeeda warar laga helay iyo weliba safarka madaxweynaha amiirka dalkaasi oo adduunka caalamka islaamka oo dhan uu isha si weyn ugu wada hayo waxaana ka mid ah Israa'iil ayaa sheegtay in ay Israa'iil ayaa la ogaaday inay dirtay cable ama diplomat cables waa fariimo diblomaasiyadeed iyo weliba afkaaro cadcad oo qoraal iyo gacan ka dhiibisa oo Mareykanka ay ugu meerinayso arrimo waaweyn waanu eragaas aanu isticmaali karaa sababtoo ah wargeyta access ayaa warbixinta soo qoray inaan halkaas ka soo guurin waxaana ku farayareystay wariyaha markaasi arrimahan u dhuun daloola ee Ravid loo yaqaan Ravid ayaa sheegay in ay soo gaadheen qoraallo waaweyn Trump qoraalladani waxay ku saabsanaayeen ka iibinta dowladda boqortooyada Saudi Arabia ee diyaaradaha F-35 kuwaasoo macnaheedu ay tahay in ay Sacuudiga ay ka iibi karaan laakiin shuruudo ay wataan hadday Israa'iiliyiin adigu مسقطة سوى عنو قياس دليلشو الصومالي ذا كلمة ستأدون كل واحد بدايل الجميستو including مريكان فيري أضوب المدعك ودن أود لي ديارديس أسوله لقاليس أسوله أو القابك ودن كالأولاد عاملة ودن كالأولاد يردينيو رنتي محنو أكره تا أدوك هوس يقر لبدا قضبة كتي أنا فلانقيني الصومالي ذا يتنبا فلانقين أدون كانوا عادوا قايتها مرة على كل شقيست أو مارتي لكن أيقوا عراد لكن علاadooda ayaga maxay inaga fiican yihiin shacbiyad bay haystaan shacabkaas ayaa bedeli doona kuwa culaada loo haysto hadda wala kala miiraya nin alaala ninka culaad ku jiro oo dhan dib loo dooramaya la leeyahay saas la leeyahay waxa la adeer culaad kuma jirta haddii noo imaanada mas'uuliyadda noo qaban anag banaankaaga iyo gurigaaga iyo carruurtaada reerkaaga la joog halka lagu rakaateeyo laakiin Mareykanka rakaata loo haysto dadkiisi baa fahmay oo kacay ayaga baa soo kala shilmaya haddaba Sacuudiga amiirka Maxamed bin Salman bin Abdulaziz wuxuu madaxweyne Donald Trump ayuu la kulmaya isla daradeed waxaa la sheegay in Trump uu helay qoraallo dhowr wararku waxay sheegayaan in horta ay dhici doonto kulamo waaweyn horta jimcihii Trump wuxuu sheegay in dowladda Sacuudiga ay iibsan doonto diyaaradaha F-35 wuxuuna yiri MBS suurtagalnimada inaan kala hadlo arinta normalizationka loo yaqaano ama normalizingka relationska uu yeelo doono Israel waxay noqon doontaa mid raja waan rajeenayaa in Saudi Arabia ay bilowdo arinta inay ku soo biirto Abraham Accords ayuu yiri muddo gaaban gudaheed laakiinse ma ballan qaadayo anigu Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu gabi ahaanba uu ka fakiray in Sacuudiga uu ka gado diyaarada F-35 haddaba waxaa la sheegay in dah gadaashiisa ay saraakiisha Israa'iiliyiintu ay arrintan soo dhex galeen waxayna sheegeen inaysan si guud uga soo horjeedin isla markaana waxa ay sheegeen in aysan ka soo horjeedin si guud Sacuudiga inuu gacanta ugu dhigo laakiin ay doonayaan dhowr shuruudood oo la yaabkooda wata waxaan u sheegnay madaxweynaha dalka Mareykanka waxay u sheegeen madaxweynaha dalka Mareykanka ergooyinkan kala duwan ee la soo diray in ay tahay kuwa markaasi qaabee doona ama samee doona ayay yiraahdeen dhowr markaasi fariimood oo la waday waxaa ka mid ah Trump maamulkiisa waxaan u sheegnay in Sacuudiga lagu hubeeyo F-35S in ay marka horeysa u baahan tahay in ay Sacuudigu isu soo dhiibaan heshiiska Abraham Accord ama ay galaan laba in lagu daro Saudi Arabia in la siiyo diyaaradahaasi in gabi ahaanba ay noqoto kuwa waaweyn haddii Sacuudigu uu diido in uu diblomaasiyad ahaan ula heshiiyo Israa'iil
waxay noqon doontaa arrintaasi mid khalad istaraatiiji ah oo maraykanku uu galay sidaa dareedeed ha laga joogo haddii uusan sacuudigu nagaga bedelaynin taa ayaa lagu qoray warbixinta access sidoo kale sacuudigu annagu uma diidanin inay diyaaradaha F-35 ay u helaan sida aan u diidannahay dalka ay ka midka tahay Turkiga oo kale oo isagu cadaawadeenna si weyn u go'aansaday isla markaana aan aad uga soo horjeedno waxaanan ka qabnaa walaac ka yarka aanu ka qabno Turkiga haddii uu gantaalahaasi iyo hubka noocan oo kale ah oo gacanta ku dhigo sababtoo ah waxaanu ka naawalaynaa sacuudiga inay maalin uun maskaxda u soo noqoto oo sida imaaraadka carabta oo kale ay u soo markaasi ay u soo gucleeyaan heshiiska kusoo biirista ayay yidhaahdeen Abraham Accord waxa loo yaqaano haddaba sawirka ugu weyn ee arrintani waxay kaloo sheegeen in ay daba socoto dhowr arrimood tusaale ahaan sacuudiga haddii diyaaradaha F-35S la siiyo waxaa kale oo ay yidhaahdeen waanu ognahay wuxuu bedeli doonaa waxa loo yaqaano qualitative-ka ama awoodda iyo tayada waxa loo yaqaano the military qualitative military waxa loo yaqaano qualitative military age ama waxa loo yaqaano dheelitirka awoodeed iyo markaasi tayeed ee gobolka ee militariga ayaa loo soo gaabiyaa QME baa la yidhahdaa markaasi waxa weeye waa kala tayo sarreynta dhinaca militariga gobolka ama regionka ayay markaasi balancing bay simaysaa hadda annaga ka sarreynay ku leeyihiin sarreyn haddaan nahnay dhinaca cirka annaga ka sarreynay laakiinse marna waa saas marna waa sidan marna waa saas marka macnaheedu waxa weeye marna in yar baa la kala hooseeyaa oo waa saas marna waa la kala jaladsan yahay oo dhinaca air superiority anaga sarre marna waa equal oo yacni waa la siman yahay marka waxaa la yidhahdaa QME-ga ayay simi doontaa ayay yidhaahdeen haddii diyaaradan ay helaan waayo diyaarada ka sarreeyo marka Israa'iil ay haysato ma jiro sidaa daraaddeed waxay sheegeen in aysan arrintan gebi ahaanba aysan waxba ka qabin waayo koongareeska dalka Maraykanka ayaa sanadkii 2008 wuxuu ansixiyey waxa loo yaqaano codified waxa loo yaqaano the Congress official codified the US commitment to Israel's QME into the Middle East into law in the Middle East dafiri arrintaas fiiri freeskas macnaheedu waxa weeye si rasmi ah ayaa aqalka koongareeska dalka Maraykanka wuxuu u codify garay ama codifil ugu sameeyey u meelmariyey in bariga dhexe Israa'iil loo daayo inay mar walba gacanta sare ay yeelato oo macnaheedu tahay dhinaca awoodda Maraykanku mar walba inuu gacanta sare siiyo Israa'iil laakiin adeerto maxaa arrinta bedelaya ma taqaana adigu do you think inay waxaan reef garanayaa inay kaliya tahay inuu Trump lacag rabo oo Sacuudiga lacag badan ka rabo maya arrintan wada diyaaradahan F-35 diyaarado u dhigma ayay shinuhu hayaan marka either way Sacuudiga waa helayaa diyaaradahan uu helayaa hadda eeg beesha arrintu ka cadada ogow lacag aad u badan uu ku iibsanaya marka Maraykanku lacagta uu isdhaafinaya Maraykanku dooda meesha ka gali doonana waa halka waxay dhaayeen kolley Sacuudiga way helayaan diyaarado F-35 ka u dhigma waayo Rafale-kiiba waa tii diyaarado u dhigma Japan ku heleen oo maxay ahaayeen J-10Z maxaa soo baxay marka J-20 ba hadda gacanta lagu haya oo F-35 ka u dhigma Maraykanka sidoo kalena waxaa kaloo jira J-35 oo ay dowladda Pakistan ay soo wado dowladda Shiinaha ay soo wado marka kolley way helayaan lacagta isdhaafinaya iyaga ay u taala saas waay marka arrintu halkaas ka socotaaye arrin Sacuudi jacayl arrintan ma aha saa weyn u fahantaa ta kale waxay sheegeen haddaba in ay jiraan wax ay u bixiyaan the between the lines marka la akhriyay ayuu yiri wariyuhu ama ay wargeysku u qaada dhigay marka la akhriyay laymanka dhexdooda inaad si tayale u akhrido oo macnaha aad si weyn u fahanto waxa ku qoran shuruudaha arrin kale oo la yaab waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa in Sacuudiga sidoo kale aanu ka helno waxay ugu yeedheen Maraykanka aanu ka helno waxay ugu yeedheen security guarantees damaanad qaadyo amni in aanu ka helno ayuu wargeyska access number 1 waxa weeye in haddii dagaal dhaco Sacuudigu uusan diyaaradahan u isticmaalin Israa'iil hadda loo isticmaalay waxa lagu falaya marka ma yooma loo isticmaalaya mise waxa loo isticmaalaya Qatar waa qodobka labaad waxay yiraahdeen waa in uusan Sacuudigu uusan saldhig oga dhigin diyaaradahan qaybta galbeed ee dalkiisa qaybta galbeed dalka mataqaana waa qaybta badda cas ee duleedkiisa sababtoo ah haddii qaybta galbeed ee waddanka Sacuudiga saldhigan diyaaradaha F-35 la keeno daqiiqado ayay qaadanaysaa in ay yimaadaan diyaaradahani Israa'iil soo gaaraan sababtoo ah Sacuudigu uu oga sii dhow yahay Israa'iil Imaaraadka Carabta wargeysku saas qor cajiib
waxaa kaloo ku qoran wargeyska waa in dowladda ay gebi ahaanba ay qaadaa dhowr arrimood oo waaweyn haddii sacuudigu markaa uu diido gebi ahaanba inuu gaabkaa meesha ka saaro gaabkaas waa maxay kala duwanaansha farqiga intoodu meesha uu diido inuu ka saaro oo ay ugu yeedheen markaas inay tahay diplomatic gaps waa arrimo diblomaasiyadeed gaab u dhexeeya oo ka mid ah isma aqoonsanin lama hadlayno nama soo dhawaa karaan iyo weliba shuruudaha ah falastiin dalaha loo helo shuruudaha haddaysan dabcin waa inay maraykanka yutan sameeyaan arrinta marka anigu maxaan ku micneeyey waa meerin maraykanka loo meerinayo is up to marka Trump iyo madaxweyne president Trump inuu arrinta go'aan ka gaadho laakiinse arrintu waa halka ayaan warahan kaga baxaya wax fikir ku dari maayo maadaama barnaamijka aan qodobo laba inoo hadheen sidoo kale wargeyska Saudi Arabia ayaan ku darayaa isaguna loo yaqaano wargeyska la yiraahdo dabcan العربية واسقنا أرنت دور ريموت كهضلي أو شيء إن لبضع لنا عيشي سيميلتري يودجلي ينسب جود مرة وجهضلي سقنا ففاهين أي ترتي عباس أرانش كودن كإيران وسيرك وسيرة أرماد بدأ وحوش شيء إن سنترين ميل ودن كيس كم إذا وهدر تأكس عطوا بعرمنتا نوكلير كلو يقانو أيوجي مركزي enrichment يورانيوم أما بعرمنتا نوكلير كما هذا لقد عليه برتلو يقانو استراتيجي معلنت اللي رهدو مركزي يورانيوم يسوي هذا عباس أرانش أيو حو شيء إن يجيب هم بقى tahay talaabooyin uu ku tilmaamay mid aan suurtagal ah wuxuu sheegay waxaan rabaa in aan qaado dhowr talaabo oo kala duwan taasoo ay ku jirto buuri qaadista arrimaha oo ugu yeeray inay noqon doonaan kuwii ugu ballaadhnaa ee dalkiisa uu dib kaga tashanayo hagaajinta arrimahaas isagoo la hadlayay wakaalada wararka FP ayuu wuxuu sheegay AP inuusan wadankiisu hadeerto uusan gacanta ku haynin haba yaraatee ayuu yiri barnaamijkaasi bacrimintiisa halkuu ku dabayo barnaamijka nukliyeerka Iran wuxuu sheegay taas inay weli cirka ku laalan tahay sidaa daraadeedna aysan cidnaba hadeerta la wadaagin laakiin ma wadno oo qorshe ayaga hadda kuma jirto in aanu bacriminano nukliyeerkaasi warkaasna Iran ayada ka hayay falanqaynta barnaamijyada cajiibka ee maanta idiga ayaa ka rabaa faafintuna waa xaggina keenista iyo runta xuraanka wararka warwareyn iyo barnaamijyada kale trivialkana waa xagganada barkooyinka bakurkin ha noqdeen amaan Allah